waxaad moodaa muddooyinkii u dambeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada shaqada iyo qoyska Soomaaliland ay kor u soo qaaday kaabayaashii shaqo abuur ee ka yeegleelmay Soomaaliland iyadoona ay ka qayb noqotay shaqo abuurkii ballaarna ay ka hana qaaday Soomaaliland isla markaasina ay qabatay dhammaanba kulamo lagu taabagelinayo sidii arrimaha bulshada loo kabcin lahaa haddaba waxa ay maanta daafurtay kulan lagaga wada hadlayo sidii ay wada shaqayn lahaayeen hay'adaha madaxa bannaan ee ka howlgala Soomaaliland iyo xukuumaddu kaasi ay la kaashatay dalada dhalinyarada ay Soomaaliya iyadoona ay ka qayb hay'adaha children iyo sidoo kale hay'adaha madaxa bannaan isla markaasina Soomaaliland ka caawin doona dhanka shaqo abuurka ugu horreeyna kulankaasi waxa furay kana hadlay agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaraddaasi Maxamed Cawaale iyo waliba agaasimaha dalada dhalinyarada ay Soomaaliya Cumar Cismaan Miigane iyagoona ay ka warbixiyaan kana warameen ahmiyadda uu kulankani daaran yahay shirkani inoo soo socon jiray 3 bilood ee babalina qabsan jirnay ee dabcan isugu yimid jireen dawladda iyo daneeyaasha arrimaha shaqada oo dabcan laga hadli jiray wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin iyo cid walba waxa uga meel taala shirweynaheedii labaad ee sanadkan aynu ku guda jirno ee runtii wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay iyadoo hormuudka ka ahayd in waxyaabihii ka soo baxay aynu dib u milicsano shirweynaha maadaama uu yahay mid sanad la noqonaya haddii ilaahay idhaa soo socda waxa uu kaga duwanaan lahaa iyo waxyaabihii shirweynaha hore ka soo baxay in runtii la isla eego sidoo kale waxa isna shirkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee shaqo qaran Maxamed Xuseen Muadin isla markaasina isagoo ka hadlay faa'iidada uu leeyahay dhalinyarada reer Soomaaliland kulankani iyo waliba halka uu marayo barnaamijka shaqo qaran taan ogahay xukuumadan sanadka jirtay madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo wasiir Hinda talaabo fara badan bay wax ka qabteen muddadii sanadka ahayd ay joogeen wax fara badan iyo dadaal badan bay isku dayeen oo ku saabsan dhinaca shaqagelinta waxyaalaha socdo oo dhan ee barnaamijyada shaqagelinta oo dhanna waxa hogaamiya wasaaradda shaqagelinta ee wasiirka ka tahay wasiir Hinda barnaamijka guud ahaan fikirkiisu waxa weeye in dhalinyarada ka soo baxaysa jaamacadaha si mutadawacnimo ah sanadkan imika dhamaanaya loogu bandhigo si mutadawacnimo voluntary inay u soo qortaan ama soo apply gareeyaan barnaamijkan ugu dambeyntii waxaa shirkaasi soo afiinay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada shaqada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinda Jaamac Xirsi Gaani iyadoona ka warbixisay ahmiyadda uu kulankani xambaarsanaa iyo waliba faa'iidada uu leeyahay dhalinyarada iyo da'yarta iyo aqoonyahanka reer Soomaaliland waxaa farxad ii ah in la gaaray dadka had iyo gooraale waxa looga waramaa ma cajabiyaan waxa la taagan yahay baa cajabiya in la gaaray waqtigii shaqo qaran la sugayay isla markaana imtixaankeedii la qaaday dadkuna ay sugayaan natiijadii insha Allah taala ay hadii idamka Ilaahay ka dhigo sanada 2019 kana ay bilaabi doonaan inay shaqo isu diyaariyaan 1500 oo arday shalay ahaa bila amal maanta ahaa berina shaqayn doona biidmillaahi raxmaan haddaba maanta waxaynu halkan ku soo bandhigaynaa ka wasaarad ahaan anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska in aynu nidhaahno shaqo abuurkii aynu u qabanay shirweynihii qaranka ee uu daafuray madaxweynaha qaranku midhahii ka soo baxay ee ahaa warmurtiyeedkii maxaa diyaar garoobay maxaa suuro galay maxaa inaga maqan maxay yihiin asbaabtu in runtii halkan lagu soo bandhigo oo qolo waliba wixii ku aadanaa ay iyadu halkaa ku bandhigto insha Allahu Raxmaan wasaaraddu waxay mar walba u heelan tahay iyadoo ku adeegaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah inay fududayso wax kasta oo bulshadu ay u baahan tahay intii awoodeeda iyadoo aanu taa ku adeegayno wasaaraddu runtii waxay gashay diyaargarow iyo dadaal badan diyaargarowga iyo dadaalkaas oo ay u maraysay hab shuruuceed maadaama oo wax kastaaba ay u baahan yihiin sharci lagu maalo ama lagu meel mariyo Soomaali Cabdi Axmed Karinle Kalsan TV Hargeysa